jacaylku waa dareen ku dhex beerma nolol kasta oo dunidan ku nool waana mid u dhaxeeya farxad ama murugo qaar buu waqtigu saaciday oo jacaylka u samaaday halka kuba kalena uu farxadda kala tagay qaar ayaa la gudgalay oo uu ka mid yahay macallinkii weynaa ee jacaylka ee cilmi boodhari maantana sheekadeenna waa la kulanka 65 sano jir 30 sano ka hor u waashay jacayl lagu qiyaamo awgeed wuxuuna 30 sano derbi u fadhiyaa cadaalad u helidda gabadhii jacaylka uga baxday maxamed cabdinuur oo ku magac dheer adeera waxa uu ahaa beerley ka hor inta uusan dhex dabaalanin muujadaha jacaylkan maanta waalay waxayna xiriir jacayl oo dhaba wada lahaayeen gabar ka mid ah dadka deegaanka Koban oo magaalada Kismaayo dhanka waqooyi ka xigta waxay ku ballameen xilligaas guur wuxuuna go'aansaday in tacabkii beertiisa uga soo go'ayo uu badnaasay sin uu u iibgeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka beecgeyntiisii kadib lacagtii dalga loogu iibsaday ayuu gacalsidiisa xoogaa dahab iyo dhar uga soo iibiyay inta kalena waxa uu ku soo riday juwaan si uu uga doonto gabadha waana sooriyadii reerka balse intii uu maqnaa ayay tala faraha ka baxday kadib markii gabadhii uu jeclaa ay nin kala raacday lana aqal gashay wuxuuna hadda oo 30 sano qisadiisa ay ka soo wareegatay weli garabka ku sidaa juwaankii uu ku waday lacagtii sooriyada ahayd balse hadda uusan isaga ogeyn in qashin loogu buuxshay maxamed tala ayaa ku ciirtay wuuna rumaysan waayay waxa gadaashiisii dhacay mahad cabdi shaqlane waa saaxiibkii adeera waana qofkii ugu horeeyay ee adeera la wadaagay weedha naxdinta ku reebtay kadib markii uu tuulada ku soo laabtay qisadiisa ayuuna TV-ga Universal uga waramay ani asagna waxaan ahayn nabadna walaal ah eel ah oo isku deegaan ah gabadh buu doonay gabadhu markuu doonay kadib ilaan gabadhii hanti la'aan ma suurta galayso meel dhashay waa ma la yiraahdo aaday beer buu ka tabcaday alxamdulillah rabbil caalamiin beert ilaahay baa u bixiyay sinti uu ka helay xamar u qaatay kadib uu soo iibsaday markuu soo iibsaday ilaan markaas lacag dollar ma jirin FC ma jirin lacag boqol ay ahayd jawaanu ka soo buuxiyay lacagtii gaari uu soo raacay kawan uu ku soo degay wixii soo dusha u soo saaray garabka uu kawan la imaaday kawan markuu imaaday koow aniga asaga iska hor imaanay waxaan u sheegay gabadha in la guursaday oo nin ay u degan tahay ninkuu isku naxay naftkeyga waxaan yiraahdaa bal maxaan iyo ninka ugu sheegtay meeshii ninka looguma dambeeynin arrintaas aaway jacaylkii gabadha ka wada dhaxeeyeen ayuuna u waashay maadaama la yiraahdo gabadha waa la guursaday asaga hantidii uu ku guursan lahaa gacanta uu ku haay filwaay la noqotay naxdin iyo jahwareer jacayl kadib adeera waxa ku adkaatay ku noloshiyaha tuuladii uu ku waayay jacaylkiisa wuxuuna soo aaday magaalada Kismaayo ee xilligaasi ku taalay maxkamaddii gobolka Jubbada Hoose waxaana maxkamadan ay noqotay mid xirmatay isaga oo aan maxamed weli go'aan ka helin waana halka uu weli 30 sano hor fadhiyo si uu cadaalad kaga helo gabadhii jacaylka ku qiyaantay balse waa riyo aan marnaba si ku rumoobayn maadaama aan war iyo wacaal toona laga hayn gabadhii jacaylka darteeda loogu waashay hadda qashin way waxa uu saaray asaga lacagtii u maleynaa gabadh uu ku guursan rabay yaradii sooridu iskaga bixin lahayd Kismaayo u imaaday cadaalad inuu helo u imaaday cadaaladii intuu iska dawareegay maxkamadii ku burburtay dawladda Soomaaliya dhacday ilaa hadda wuxuu u fadhiyaa inuu cadaalad uu helo cadaalad Ilaahay u sahlo cadaalad maxay tahay yani cadaalad waxay tahay gabadhii hadda gabadh mid nin guursaday maanta ku ma ahan hadda nin isaga nin iska waasho way gabadhu u maleynaa inuu helay asaga calaa ay cadaalad sugo way halkaas u fadhiya cadaaladiisu u fadhiyo oo aytiinkiisu ku baaba'ay qaado warar malshaha ku waraab qeyr heli shah isaga waraab qeyr Allah ka dhigo adeera inkastoo jahwareer jacayl galay haddana cidna ma wax yeelo hadalkiisana ma dhaafsan rajo xag alle iyo u duceynta dadka wuxuuna ku hidaajiyay dadka magaalada Kismaayo welina ma helin jacayl iyo cid daryeel ilaadan maxamed Universal TV magaalada Kismaayo